السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي كحرن فاتوش channel سود وهذا ولاشن فاتوش channel كده ونسينا وفاتوش channel حضو ما شاء الله موضوع يعني سي وضنهم ربنا ما أنت وحن ربنا إن كرش كيو موضوع عاد قبل هو ذا السوق هو time management سيدا عاد هو يقول شوك تطع هو شقي صح سكول دقته وحاربتي time management وحابها يشقي aad igu fududeeya hawshayda maalmeedka inaan guto ayadoo tahay mine the children and the guriga oo dhan ila socda insha Allah subscribe saar barnaamijka asxaabteena la share garay xalawada hadasheen waxa tiraadin fatuush waan ku haysanaa tipska iyo waxyaabaha aad siraha aad siinaysid dhiirigelinta meeshaas ka sii wada idinkuna hawshiina meeshiina ka sii wado de gabdhaha ana kaleebo yaa wax kasta kala kicin karnaa barnaamijka share garay asxaabtaada la wadaag gabdhaha u dirdir fatuush soo booqda subscribe saarade de markaas aniguna de wax kastoon hayo waan soo tuuraya saa inii sheega laakiin hadda arka 500 qof oo meesha iska fadhida waxa ya insha Allah doonaysaa go'yaal qurux badan oo sariirta aakiin iyo kuwiinba waxaad ka helaysaa Fatuush Family waxaan kaloo ku haynaa aqadada miiska alaabtii la saarayay waxaan meesha ka maqnayn daahyadii quruxda badnaa oo wiig kasta imaanaya haddii aad degantaa Twin Serieska iyo nawaaxigeeda waxaan leenahay free delivery sidoo kale haddii aad isteedyada kala degan tahay waxa aan leenahay shipping baa lagu samaynayaa waxaad naga soo wici kartaa nambarka shaashada ku qoran ama sidoo kale waxaad igala hadli kartaa Snapchat-ka oo aad ka samaysan kartid order-kaaga soo dhawaada macaamiisha ku xiran Fatuush Family markasta waxaan jeclay markaan wax inii sheegayo inaan badana u badiyo waxyaabaha qofka u shaqeeyo because dadka haddii maanta dhan waxaas la sameyn jiray waxaas la waxin jiray aad tiraadid waxa ka fiican waxa adiga ku shaqeeyay aad ku nasatay inaad gabdhaha la wadaagto for example waxa daan sheego gabadh taqaanay hore u sameyn jirtay waxa tiraahday good job Fatuush I already know it waan sameyn jiray laakiin gabdhihii ay fikradaasi ama wixii aan soo share gareeyo aan la wadaago yes waxbay ku taraysaa ma sha Allah both labada way anfacaysaa midii sameyn jirtay waxay tahay wallahi qof ila sameeya baa helaa ma sha Allah time management markay imaato waqtigaaga oo ilaalisid waqtiga oo isticmaashid aniga noloshayda baart weyn ayuu ka yahay qayb weyn ayuu ka yahay because qof kastana waa ku qasban inuu qayb weyn ka yeesho because qofka haduusan waqtigiisa ka faa'iideysan waxa waaye ma noqonayso qof wax taraaya ma noqonayso dadka kugu hareeraysan inaad wax u qabatid ma noqonayso qof active ah ma noqonayso qof actiisa lagu enjoy garay because waxa noqonaysa qof markasta kala daadsan daalan dhibaataysan tabcaansan marka waxyaabo badan baa inuu wadaagi doonaa haday noqon jikada uu tagi doono oo cabitaan mar kale waa today maya on in tusi kala cabitaan active ka dhigaya waxyaabaha aan isticmaalo isleeyahay wallahi markaan caajis ama aan dareemo alaabtaas dhab isku siyaa markaas ayaa alaabta go'aadhan yani wax kaas waa la burburinaa camal waa la shar gareena laakiin time management-ga ka hadlaya waqtiga meelo badan waay waqtiyo badan waay waqti wuxuu noqonayaa ilmaha oo time u yeeshid oo time management u samaysid waqtina wuxuu noqonayaa hooyada time management for example ilmaha waxa kugu fiican anigana aan sameyn jiray ma sha Allah cunuga markuu yar yahay in aad iskaga yeesho waqti because dadka qaar kood kula yaa waxay see qof waqti u sameyn karaa see qof waqti u sameyn karaa yes you can do it waa struggle laakiin oo yani waa wax aad u dhibaato badan in la sameeyo laakiin waa ku enjoy gareynaa waa wax adiga time ku soo save gareynaa for example waxaad arkaysaa hooyo ku soo wacaysa gabdhaha caadiga meesha igu jira ama saaxiibada isnaqaan ama gabdhada caadi u aqaanaba waxa arkay maanta dhan hooyo way guriga joogtaa laakiin maanta dhan way dhibaatanaysaa hawshu maanta dhan maba dhamaanayso iska socota waa run guri hawl kama dhamaanto that's true laakiin time management wuxuu ku barayaa qof kasta wax kasta inaad iska sameeysid yani sometimes you can sleep guriga oo wasaqa guriga jikado halaysan hadaartid wax kaso because time management-gaaga markaad raacdo wixii kala halaabo shaqo ku mid laakiin waa inaad time kaas ilaalisaa okay perfect wax kasta kama dhigi karto okay because bini aadan human baata waxa arkay gabdho 11 isoo wacay dhahay jikada hagaajina is okay sometimes jikada meesha in haminada qaar kood laga seexdo oo wax kale oo naftaada anfacay ku mashquush it's okay
dadka qaarkiis u moodin inay wax u fatahay yani wax xun inay dhaay so for example aniga hadda timekayga hadda in kaga sheekeeyo life inay inay tusi doono insha Allah mar wax ilmaha waxa aan sameeyaa time ilmaha ila time na ana leh oo naftaydan kula xisaabtama midaas iska ogoyaa labada time isku qalin midna naftaada kula xisaabtama midna waa ilmahayga markay yar yihiin oo yiriis yihiin cunug dhashay ma aragtay labada bilood ugu horeysa waa struggle gareynay 4 months markuu jiro cunuga aan time iskaga bilaaba oo waxaan ku bilaabaa in aan waqti iskaga yeelo muxuu yahay waqtigaasi for example cunuga markuu yar yahay babyga yahay markuu dhasho waxaad sameynaysaa waxa uu iska jalgareynay waqti uu garanayo fahmaysa waqti uu garanayo for example cunuga caawa hada inta uu qubeysid 8 o'clock diyaarisid calooshiisa u buuxisid sirritiisa geysid يعني adiga ina ku celcelin ba daran moogiye asaga daynaaw waqtigaas uu ku xisaabtamayo wuxuuna la qabsanayo bay noqonaysaa soo waxaan xasuustaa xaafadda dariska iyo state ka mid garan jiray soo marka degan jiray dariska ee dooyinkayga walaalahay ba ila ag deganaa يعني walaalkii gurigiisa xaafadiisa bis guriga marka ay imaadaan waxaan xasuustaa timekayga ma daafacay never in million times cunuga isla waqtigii 8 o'clock no matter dad hayla joogeen ila joogin waa u qubeena calooshiisa u buuxina bahalkiisa u riixa qolkiisa u dhaxliga sometimes waa cabsan jiro waxaan dhigi ama cunuga ama mataga ama wax uu fikri jiray ma heleen alxamdulillah ilaahay stage-kaas uu iga soo gudbiyay camera ama xirata oo si cunuga because waxaan rabaa inuu time-kaas la qabsado so 4 months very important 4 months because marka kale afarta bilood labada bilood hore because cunuga waxa waa you know saddex bilood ugu horeysa waa waqtigii baa ka dhunsanba labadiinaba adigana waxa ku jirta healing oo inaad waxa ka soo kabatid dhalmadii aad dhashay iyo dhibaatadii asagina wuu yiri waqtigii baa iska laakiin afar bilood waa inay ahaataa goolkaaga baa afar bilood marka tira waa inaa sheetkiisa siisaa baby waa inaa siisaa waxa maanta isku bilowdid ayuuna ku caqliyaysan hadaad u baratid أنا عنق 11 لسه وجدي 11 لسه كوسو أهانا وأنا كدلة ويوم بدن كنت ما حكي القراية وحصوي don't ever هدا شقيسد إيه هدا شقين بوحال ربا اسكو نوع أنا أحسبني وريجي مركان شقين شري إيه مركان هدا وحبا إيه مرعب وريجي الشقة المها أقبنا يقولك أنك قبنا I treat it like إن اللي بيجرنا جد عن قادنا because نفتي تربية أي وبعنت تربية ده هداك قادنا ويك قادنا تربية ده حابة قايسة واحد ملهي تايم أسوق عاد ملهي تايم هولس كجد ميس ملهي تايم عنك سرت كده عاود لأنه قبره ده اللي من السلاقة اللي نجرت يا sometimes أنا كويدويد اللي ما سويتنا تاني وسويتنا لكن أنا إبغى سويتنا قل كودك سويتنا I don't care أما سويت أما سويت you have to be in your room شرعي جاي ساسوا soo markaas saas cunuga kuwada uu la qabsana waa kuwada marka dambe cunuga mana oyna wallahi wax xasta gabdho waxay soo booqanaya cadaan oo wadanka dhashay duhurka qadada waxay ma badci kartaa faatuus si u sameeysa ilahay marka qadayeen wana kala ilmahayga deenoodeen ma ciyaar guriga qolkooda ku jira waa hadlooya uu soo jeeda cunuga aroon keeran ku dhaca aduu soo jeeda maahan maxay iga qosaan ma booyaasan waane subaxdii aan u soo kacay quraacan si waxbaan baray waan tiijkro all muska wada ma doqon baa 1 o'clock markay 2000 taalo waa baqan guriga 2000 markay gaad isdiyaaris baa bilaa by 1 bis guriga joogo hooyo guriga joogta soo way 1 waxa way sirriisan ku aroornaa cunuga wuxuu sameeynayaa markuu gaaro maxaa la dhihi jiray 3 sano oo gala 4 sano wuxuu bilaabay kibir 1 o'clock inuu ka escape karayo oo rabo waxa way sharcigayga waa sariirtii waa tagay ha seexan ciyaar sheekaysta idinka tara way yaqaanaan 1 o'clock guriga ku arooray أنا واحد كسمة أديك وطالع just واحد يقدر إنه يسكب بود بدأ استيلان قف السرتيس جي شاكيست ولا ريال لكن أنا don't bother me this is my time أنا واحد قصة ما يصنع so تاس مركي كسو جذبته أنا جينا محن سمينا يا كله جين كم وده جاري دونا ده عارف بيني كلا هافينا يا مفهم مثلا أنا جينا محن سمينا يا واحد جرت حدا مركي كلا إسكو أوكي بيبتا حدا بقى يقدر حتى وانشق يا because ما أنشق يا مكان كلها هاي business كي عن سمايو واحد يقول قصة إن همين كي مرة بدن سوتشي وهمين القارب تري أقلاق تلفون كأن كتشوا because order بحسمينا يعني واد أركتين the United States أبطل مكان تركي بقى لقي كيرا وكلا سما so you have to be up like 3-2 مركا أدريتين هذا super professional وشقيسي والعبت هذا أدوك دورته أو دهين تاد إسكاسو كذا عادة دهين وأنا سوتشي ده سوتشي كي قبل لكن no matter what إسكاتشر كي لا استعماله
saasa haddaan soo jeedaga subaxdii haddii iskuul lee ilmaha iskuul hadda fasax baan ku jirnaa I don't beat myself fasaxa it's okay ilmuhu markay soo kacaan baa ii ballama inaan soo kaco markuu ilmuhu soo kacaan laakiin marka kale schedule waxa waaye by 8 ilmahayga 9 late baan iskuulka gadnaa 9 o'clock waxa waaye iskuul aadaan Soomaa soo waa inay 8 soo kaca 1 hour kaas waxaan ku boobsinaa diyaarintooda quraacsinteed waa speed kareyna waqtigaas la soo kaca laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad garanaysid timekaaga waxa in kaga sheekayn doonaa ilmaha yaryarka iyo sidaan iskugu manage garay maanta shaqada iyo telefoonka waxyaabaas waa ninka waa secret laakiin waa in la share garaa because waxaan dareemayaa inay dad badan u dareemayaan wax adag laakiin marka time isticmaashada oo yani adiga aad saacad isku xirtay inaad wax kasta sameyn karto markaan soo kaco waxaan sameynaa quraac waa ogahay waa soo kacay waa ogahay timekayga wiidis ma ahan inaan wax iska sameynaa waa ognaa ilmihiina sidii baa ku xirmantay jaa aniga inay ila socdaan moodo waa cadaysanaynaa waa quraacanaynaa dan waxaan gelaynaa qur'aankay gelaynaa fahmi dugsiyaan gelaya ilmaha la gelaya intaas by the side telefonkii waa shaqeynaya oo telefonka shaqada markuu soo kaco soo dhaco ayaan ka jawaabaya midda kale oo aragtay tarbiyad inaa iska siiso waxaa waaye all day ani telefon kuma hadlo okay telefonkayga personalka kuma hadlo only shaqada ayaan ka jawaabaa maxaan taas u diidaa because waxaan isbaray in aanan ilmahayga agtooda telefonku isticmaalin taas waa sharciga yaala because TV-ga ayaa karbaraa ka sheekayn garo TV-gayga ayaa iska jargaraysan only 2 hour ay ilmaha daawadaan iskuulka markii leeyin waa 1 hour kaliya only waxay daawadaan galabtii markay tahay like 6 o'clock iyo ilaa 7 halkaas ay daawadaan marka maxaan u keenay inaan telefoonka iska saaro aan ku hadlinin wixii important iyo bis ama aabe soo ama hooyo soo dhacay aan waa ka jawaab laakiin telefoonka saaxiib laqata waa inaa joojisa I know it's very hard but laakiin waa inaad isku beat garaysaa inay time kugu xirayaan waxa igu soo noqon doonto su'aasha waa isku oga ma keep garayn kara time you can do it haddii futuush samaysa adigana waa samayn kartaa waad samayn kartaa marka aan leeyahay ilmaha TV-ga laga celiyo adiga ayaa number 1 ka ah horta adiga intaad qof wax ka celin adigu ina iska celisaa markaan sariirtooda geeyo 1 o'clock ciddaan rabaan wacda waa aniga personalkayga iyo aan raba saaxiibna la sheekaysto ciddaan rabaan wacana markay tahay 9 o'clock habeenkii oo sariirahooda ku gorana ciddaan rabaan wacana ilaa iyo baashaalkayga day xad mala markaas waa iska waqtiga anigu rabaan seexanaya laakiin waa inaad telefoonka iska xadidaa aadan maanta oo snap ku jirinin aad maanta oo wax isticmaalin waxa ugu darna waxa way haddii adiga telefoon isticmaasho cunugana wuxuu raadinaa iPad iyo TV so si aan ku xadido telefoonka meelaha iska dhigaynaa dan ship waxaan sameynayaa ayaka baa la ciyaara waa dib waa rafaad laakiin marka timekaagaasna samaysatid telefonkani iska ilaalisid waxa waa successful maanta ilmahaaga la ciyaaray waxba baraysaa waa la sheekaysanaysaa waqtigoodii markii la gaaro la galabtii 6 o'clock oo ay daawanayaan ayakana waxbaan sameeyay secretkaas oo marka aan ka dhacay halkaas wax baan ku sameeyay ma fahmaysaa kadibna sidii iska jirka isla sidii ku shaqeynaa markaan banaan aadayno waa inay aadaa markii ay naabkooda ama naabkay u gambinayna ama after naab la aaday wala soo noqona still iska jirka sidii no struggle because waxa waa wixii maanta dhan routine ay ku celcelinayso cunugu la qabsana 4 months cunug lagu bilaabay in qolkiisa galo my 2 year alxamdulillah qolka marka ay geysid duhurka ay tahay ilaa meelaha laga qayriyo qolka ii xirbay ku dhahaysaa because long time wax meel laga shaqeynayo alxamdulillah ma sha Allah idinkana waa sameyn kartiin so insha Allah maanta waxa noogu xigi doona mawduuc dadka dhan ay wada sugayeen secretka ma sheegayo oo aad raba gabdhaha inaan uga dhaco soo qiyaas hadaa garin dalcala ay ku fikirayso wuxuu yahay topic ku xigi doona soo qiyaas soo qarbal ina yaani waxa ogaanaynaa qiyaastaada intay tahay iska jalka markasta waa inay duubi doonaa anoo live u sameeynay insha Allah gabadha dhig doonto ma sameyn karo waa sameyn kartaa try speed garayn speed liber bidab cunuga haduusan time lahayn waxaad xad nooca sariirtiga hamidga sa u wadid 8 o'clock ilaa ka keentid insha Allah asxaabi aad bad mahadsantiin saad markasta u jeceshiina toobigidayda toobiga ku xiga wuxuu noqon doonaa hit ya wax laga yaabo insha Allah hadii Ilaahay idmo baan inay haya hadii Ilaahay ugu tala gal gabdhaha inay ka faa'iideystaan faa'iido badan u yeelan doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدب مهسنتين سبسكرايب شير لايك.